بسم الله الرحمن الرحيم مدحوين كحيينك بنتلان قدوميها بارلمانكا قدومية كحيينada xubnaha golaha baarlamaanka xubnaha golayaasha kale ee dawladda senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole madaxweynihii hore ee Puntland shaqaalaha iyo howlwadeennada kala gedisan ee baarlamaanka xubnaha beesha caalamka iyo safaaradaha siyaasiyiinta waxgaradka simada cuqaasha iyo culimada haweenka dhalinyarada qaybaha kala duwan ee ururada bulshada gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa saaka sharaf weyn ii ah inaan hortiina imaado si rasmi ahaan aan u furo kalfadhiga 44aad ee baarlamaanka iyadoo dhinacyada kalena aan idinka warbixin doono waxqabadkii xukuumadda muddadii 4 bilood ahayd ee ay shaqaynaysay guud ahaan dalka xaaladiisu aad ayay u wanaagsan tahay nabadgelyo ahaan horumar dhinacyo badan oo socda raxmadda Eebbe oo si fiican loogu diirsaday intaasoo dhammi waxaan ina ku waajiba inaan Allah uga mahadnaqno alxamdulilaahi calaa kulli xaal mudanayaan iyo marwooyin kadib ansixintii xukuumadda xubnaha golaha xukuumadda iyo barnaamijkii siyaasadeed ee ay ku shaqayn lahayd 16 February 2019 waxaan gudagalnay dejinta fulinta iyo hergelinta barnaamij siyaasadeedkii la ansixiyay waxaan halkaan idinku soo bandhigayaa waxyaabihii noo qabsoomay muddadii 4 bilood ahayd ee xukuumaddu shaqaynaysay anigoo u qaybinaya dhowr qaybood qaybta koowaad shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda cusub si loo dardargeliyo fulinta barnaamijyada siyaasadeedkii baarlamaanku ansixiyay looguna bedelo qorshe howleed muddaysan oo leh hiigsi iyo halbeeg cad waxaanu qabanay shirweyne aan ugu magac darnay shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda cusub ee Puntland muddadii u dhaxaysay 12 iyo 14 Maars 2019 ujeedooyinka shirkaasi waxay ahaayeen xogsiinta xubnaha golaha cusub dhinacyada sharciyada degsan habraacyada iyo xirhoosaadka golaha wasiirada diyaarinta qorshayaasha hortabinta leh ee 2019 ee hay'adaha dawladda xoojinta wada shaqaynta hay'adaha dawladda ka doodista arrimaha siyaasadda amniga dhaqaalaha ee waddanka si loo abuuro jawi iyo fahan ballaaran oo ku saabsan maaraynta hogaaminta dalka falanqayn dheer kadib waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in dawladda Puntland ay harmuud ka noqoto mar walbana dadaal iyo qorshe kasta oo adkaynaya nidaamka iyo dawladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaal ah iyo sarreynta sharciga sidoo kale waxaan ka codsannay madaxda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dawladaha xubnaha ka ah in mudnaanta la siiyo ka wada shaqaynta arrimaha masiiriga ee dalka sida dhammaystirka dastuurka dhammaystirka xeerarka khuseeya hirgelinta federaaleynta dalka ka wada shaqaynta doorashada xor ah oo xalaal ah 2020 iyo ka wada shaqaynta arrimaha amniga waxaan kale oo la isla qaatay sida uu qabo dastuurka federaalka ahi gorgortanka iyo heshiis walba oo saameynaya dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in lagala qaybgeliyo oo uusan ku koobnaan kaliya dawladda dhexe sidaa darteed Puntland waa inay qayb ka tahay wada hadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland muddadii uu shirku socday waxaa la dhammaystiray qorshihii hay'adaha dawladda 2019 waxaana bilaabmay qorshihii 5 sano ee 2020 iyo 2024 isaga oo saldhig looga dhigayo barnaamijka siyaasadeed xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyay qorshaha la diyaariyay waxaa loo qaybiyay 5 qaybood oo waaweyn oo kala ah qaybta arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga qaybta amniga iyo sarreynta sharciga qaybta horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka qaybta horumarinta arrimaha bulshada qaybta dib u habaynta iyo tayeynta hay'adaha dawladda waxaa sidoo kale la aasaasay gudahoosaadyo golaha wasiirada iyadoo loo
golaha wasiirada iyaga oo lagu salaynayo qaybaha shanta ah ee qorshaha la dejiyey uu ka kooban yahay waxayna kala yihiin gudahoosadyadaas guddiga arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga guddiga amniga iyo sarreynta sharciga guddiga horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka guddiga horumarinta arrimaha bulshada guddiga dibahabaynta iyo tayeynta hay-adaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin warbixin dheer oo shirka ka soo baxay waxaan ka samaynay buug si uu u noqdo tixraac aanu ku salayno qorshayaasha dowladda ee sanadka soo socda iyo weliba inuu noqdo marjac baarlamaanka iyo dadweynaha haystaan fulintiisana lagula xisaabtamo xukuumadda buuggaas oo daabacan waa kan la idiin qaybiyey dadweynaha ciddii danaynaysa waxay ka heli karaan xarunta wasaaradda qorshaynta tani waxay qayb ka tahay sare u qaadidda daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka aan horay u ballanqaadnay qaybta labaad shirkii wadatashiga madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah mudanayaal iyo marwooyin sida aad la wada socotaan waxaa muddo go'aanaa xiriirka wada shaqayneed ee dowladda federaalka ah iyo badi dowladaha xubnaha ka ah kulankii ugu dambeeyey ee ay kulmaan madaxda labada heer wuxuu ahaa bishii juun 2018 ee ka dhacay baydhabo wada shaqayn la'aantaas waxay keentay dib u dhac weyn dhinacyada amniga siyaasadda iyo guud ahaan horumar walba oo lagu tallaabsan lahaa la karay dhinacyada amniga siyaasadda iyo guud ahaan horumar walba oo lagu tallaabsan karay annaga oo ka duulayna ujeedooyinkii lagu aasaasay Puntland oo ay ka mid ahaayeen raadinta iyo taabagelinta dowladnimo Soomaaliyeed waxaanu fidinay gogol ay isku imaanayeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si looga wada xaajoodo arrimaha la isku khilaafsan yahay xalna looga gaaro shantii bishii abriil 2019 waxaa garowga ka furmay shirkii aanu ku baaqnay waxaana ka soo qayb galay madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ujeeddada shirku wuxuu ahaa in laga wada hadlo arrimaha khilaafka keenay xalna laga gaaro arrimahaasi waxay ahaayeen tabashooyin u badan wada tashi la'aan ay ka tirsanayeen maamulada dowladaha federaalka ah dowladda federaalka ka tirsanayeen gaar ahaan arrimaha masiiriga ah oo ay ka mid ahaayeen qaabka loo wado dhammaystirka dastuurka shuruucda iyo xeerarka la ansixinayo golayaasha dowladda federaalka ah arrimaha doorashada 2020 qaybsiga khayraadka iyo guud ahaan habacsanaanta dhinaca federaaleynta dalka mudanayaal marwooyin dooda Puntland waxay ahayd mid cad Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah kaas oo dastuurku meel gaarka ay uu kala qeexayo mas'uuliyadaha iyo shaqooyinka dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ma doonayno Puntland mana rabto inay qaadato dowr iyo shaqo ay leedahay dowladda federaalka sidoo kale ma aqbalayno in dowladda federaalka ay si hareer marsan sharciga u qaadato dowrkii maamulada dalka waxaan aad isugu taxalluujinay inaan kala aragti duwanaanta xalino kuna bedelno isfaham wada shaqayn is-ixtiraam iyo dhaqangelinta sarreynta sharciga nasiib darro 7 bari kadib shirkii wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan waxaan aaminsanahay in laga baaqsan karay burbur ku yimaado wada xaajoodka haddii dowladda federaalka ahi ka soo dabci lahayd maroorsiga iyo isku kala yeelidda talada dalka maanta waxaan u baahannahay wada jir wada tashi wada shaqayn dadka Soomaaliyeed uma baahna tafaraaruq niyad jab hor leh iyo awood maroorsi xal aan keenin Puntland waxay weli diyaar u tahay in ay wada xaajood iyo is-afgarad laga gaaro xiriirka aan wanaagsanayn ee kala dhaxeeya dowladda federaalka Puntland waxay mar walba hormuud u tahay ku dhaqanka iyo dhowrista dastuurka hirgelinta iyo adkeynta nidaamka federaalka iyo ka shaqaynta sidii si is-afgarad ah looga gaari lahaa arrimaha masiiriga ee ka dhaxeeya heerarka kala duwan ee maamulka dalka waana sababtii ay u martigelisay shirka wada tashiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha
dowladaha xubnaha ka ah ee ka dhacay Garowe mudanayaal iyo warwooyin dhinaca kale muddadii uu socday shirku wada tashiga madaxda dalku waxaan uga faa'iideysanay inaan yeelanno shirar duceedyo lagu xoojinayo iskaashiga iyo wax wada qabsiga maamulada dalka 12 Abriil 2019 waxaa heshiis iskaashi dhex maray Puntland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyadoo lagu heshiiyey in la kobciyo iskaashiga dhaqaalaha midka amniga iyo isdhaafsiga aqoonta iyo khibradaha iyadoo Puntland ay qayb weyn ka qaadan doonto tayeynta hay'adaha dawladda ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed hore waxay Puntland iskaashi noocan oo kala ula lahayd Galmudug iyo Jubbaland tani waxay qayb ka tahay dadaalada Puntland ay ugu jirto adkeynta xiriirka iyo midnimada dalka walaalaha ee Soomaaliya qaybta saddexaad xoojinta xiriirka deeq-bixiyaasha iyo Puntland mudanayaal iyo marwooyin si dib loogu soo celiyo loona adkeeyo xiriirka aan la leenahay daneeyaasha arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaan la kulannay safiirada dalalka iyo ururada xiriirada diblomaasiyadeed la leh Soomaaliya sida Mareykanka Ingiriiska Jarmalka Midowga Yurub Masar India Saudi Arabia Norway Sweden UN qaybaheeda kala duwan iyo kuwa kale kuwaasoo intooda badan lagu qabtay gudaha Puntland kulanadaas oo dhammaantood ahaa kuwo miro dhal ah waxay Puntland ku guuleysatay in ay u gudbiso aragtideeda siyaasadeed dalka iyo qorshayaasha horitabinta leh ee dawladda cusub waxay si la mid ah danaynayaashu ballan qaadeen inay garab ku siinayaan Puntland qorshayaasha horumarneed ee dhanka dhaqaalaha arrimaha bulshada amniga hirgelinta dimuqraadiyadda waxaan sidoo kale safarro rasmi ah oo lagu horumarinayo kobcinta dhaqaalaha Puntland laguna soo jiidanayo maalgeliyaasha caalamiga ah ku tagnay wadamada Imaaraadka Carabta Kenya China iyo Ethiopia kulamadaas waxaa looga faa'iideystay in dardargelin iyo dib eegis lagu sameeyo fulinta mashaariicdii socotay waxaan sidoo kale lagu soo saxiixay is-afgarad horumarineed oo cusub oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha safarada waxaa sidoo kale looga faa'iideystay in lagula kulmo maalgashayaal caalami ah oo lagu casumo shirka maalgashiga ee Puntland ee furmaya bartamaha September qaybta afraad waxqabadkii wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda mudanayaal iyo marwooyin sidii aan hore u soo xusay waxaan qorshayaasha hay'adaha dawladda u qaybinay 5 qaybood oo waaweyn oo hoos imaanayaan qorshayaasha u gaarka ah wasaaradaha iyo hay'ad walba oo dawli ah warbixinta waxaan idinku soo gudbinayaa aniga oo raacaya qaybaha 5 ah wixii faahfaahin dheeraada oo looga baahdo wasaaradda ama hay'ad gooni ah waxaa la soo wadaagi doonaa baarlamaanka mar walba oo laga dalbado qaybta arrimaha siyaasadda iyo maamul wadaagga mudana gudoomiye mudanayaal 4 bilood ee la soo dhaafay ee ay dhisnayd xukuumadda cusub waxaa horumar wanaagsan laga sameeyay dhanka maamul daadejinta iyo dimuqraadiyeynta deegaanada Puntland tusaale ahaan waxaa la dhammaystiray dhismaha golaha deegaanka Gaalkacyo waxaa sidoo kale la bilaabay dardargelinta dhismaha golayaasha deegaanada degmooyinka isku shuban Qandala Waaciye Laasqoray Baran iyo Taleex waxaa la dhammaystiray magacaabida gudoomiyaasha gobolada Mudug iyo Sool si kor loogu qaado adeega iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee degmooyinka waxaa la dardargeliyay fulinta wajiga saddexaad ee mashaariicda maamul daadejinta ka socota 9 degmo oo Puntland ah oo isu geyn inta lagu jiro wajiga saddexaad ee mashruuca laga fulin doono 40 mashruuc oo kala gedisan sidaas si la mid ah waxay dawladdu daahfurtay mashruuca horumarineed ee degmooyinka Qandala Bursaalax iyo Galdogo kuwaas isugu jira dhismaha iyo dayactirro hoolalka beeyada Qandala hergelinta leyrka jidadka ee cadceedda ku shaqeeya ee 3 degmo aan kor ku soo xusnay dhismaha suuq bulsho ee Bursaalax iyo Galdogo iyo sidoo kale dhismaha guriga bulshada ee degmada Qandala Puntland oo ka mid ah gobolada ugu horeeya dejinta iyo martigelinta dadka Soomaaliyeed waxaa ku nool kumanaal walaalo Soomaaliyeed oo ka soo barakacay gobolada kale ee Soomaaliya gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya walaalahaas dib iyo dheefba la qaybsaday bulshada reer Puntland intii ay xukuumaddan jirtay waxaa la dhammaystiray istiraatiijiyadda isdhexgalka
labada bulsho ee walaalaha ah waxaa sidoo kale la soo afmeeray xeerka hannaanka deegaanka u helidda barakacyaasha Puntland inta ay xukuumaddani jirtay waxaa sidoo kale la dhisay dhismo 102 guri ah oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyada oo dhan sida goob caafimaad iskuul ceelbiyood goob bulsho iyo layrar jidadka ah ee cadceedda ku shaqeeya 22 sano ee la soo dhaafay ee Puntland jirtay waxaa qorshuhu ahaa bulshaduna ku taamaysay in laga gudbo hannaanka doorashada ee qabaliga ah oo laga gudbo hannaan doorasho oo dimuqraadi ah oo muwaadin kasta oo Puntland dhiibto codkiisa si uu u doorto dadka matalaya iyo madaxda heerarka kala duwan ee maamulka inkastoo dadaal fara badan laga bixiyay arrintaas haddana maysan suuro gelin sidii ku caddayd siyaasadda dawladda cusub ee aan ka akhriyay hortiina 16 February 2019 dawladdan waxaa ka go'an in nidaamka doorashada ee dimuqraadiyadda ku dhisan uu hirgalo Puntland waxaa qorshaha sanadka 2019 dawladdu ugu jira inay qabato doorashooyin ilaa 3 degmo ah si tijaabo ah lagana hirgelinayo doorashada degmooyinka oo qof iyo cod ah ujeedada laga leeyahayna ay tahay in wax laga barto tijaabadan laguna duulo marka ay dawladdu fulinayso doorashooyinka dalka qaybta amniga iyo sarreynta sharciga mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxa ay bilowday dardargelinta iyo sugidda amniga gudaha iyadoo la qaadayo hawlgallo joogto ah oo laga hortagayo falalka amni darrada ah ee ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo iyo Boosaaso intii hawlgalladu socdeen waxaa la soo qabtay tiradii ugu badnayd oo sharwadayaal ah oo qaybtood ay ahaayeen kuwii geysan jiray falal argagixisa kuwaas oo ay socoto maxkamadayntooda waxaa la bilaabay si habsami leh waxaa la bilaabay si habsami lehna u socdo dib u habaynta iyo tayeynta ciidamada amniga sida booliiska daraawiishta asluubta iyo sirdoonka dhinacyada sixidda tirakoobka tababarada iyo qalabaynta si loo helo ciidan ku filan sugidda ammaanka gudaha iyo difaaca xuduudaha tusaale ahaan waxaa tababar loo bilaabay 1,000 ka mid ah ciidanka booliiska iyadoo dufcadii koowaad dhammaysteen tababarkii halka dufcadii labaad ay hadda u socoto waxaa dayactir lagu sameeyey qaybtoodna hadda socdaan xeryaha tababarka ciidamada ee ku yaal Mudug Nugaali Karkaar iyo Sool sidoo kale waxaa la dhagax dhigay xerada tababarka ee gobolka Sanaag waxaa kale oo la bilaabay dhismaha saldhigga booliiska degmada Galdogob iyadoo la hawlgelinayo saldhigyada cusub ee Buurtile iyo Haalabooqad waxaa dadaalo badan kadib lagu guuleystay in la mideeyo quwadaha ciidanka ee gobolka Sanaag iyadoo la qarameeyay lana soo dhaweeyay ciidamada iyo saraakiisha wadaniyiinta ah ee ka soo baxay maamulada kale ee aan Puntland ahayn waxaan halkaan bogaadin iyo hambalyo mar kale ugu dirayaa ciidankaas iyo saraakiishii hogaaminaysay iyo dhammaan intii ka shaqaysay guusha taariikhiga ah waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladooda waxaan uga mahadcelinaynaa go'aankaas geesinimada ay qaateen ay ku garab istaagayaan dadkooda iyo dalkooda ku adkaynayaan heshiiskii ummadooda ay hore ugu gashay inay Puntland ku dhisato midnimadana ay u adkaynayaan si loo hubiyo isku ekaanshaha iyo asalnimada sharciyada dalka laga dhaqangelinayo waxaa la soo siyaadiyey wax qaabilsan arrintaas oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxaa la bilaabay dib u eegista xeerar horey loo ansixiyey oo kala ah xeerka nootayooyinka iyo xeerka qareennada waxayna curinaysaa xeerar kale oo xeerka dugsiyada qur-aanka xeerka guddiga culummada iyo xeerka awqaafta waxaan dhaqangelin loo sameeyey maxaabiista 200 oo maxbuus waxaa la baray xirfado kala duwan oo u diyaarsan siday nolosha uga qayb qaadan lahaayeen laamaha amniga iyo cadaaladdu waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan cadaaladana la hor keeno dhagarqabayaashii geystay falkii aadka u xumaa ee kufsiga waxaana ku kalsoonahay in cadaaladdu sugnaan doonto dhagarqabayaasha la marsiin doono ciqaabta sharciga ku xukuman yahay haddii alla yidhi qaybta horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka waxaa socda dadaallo lagu xaqiijinayo dhammaystirka iyo hirgelinta mashaariic wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin kuwaan soo socda mashruuca biyaha ee laga hirgelin doono deegaanada Puntland kaas oo ay ku bixi doonto
lacag dhan 13.5 milyan oo dollar mashruuca dhismaha iyo dayactirka wadada gaalkacyo xarfo iyo ay maalgelinayso midowga Yurub iyo Bangiga Horumarinta Afrika oo lagu guuleystay in dib loo howlgasho mashruuca horumarinta dhaqaalaha oo ay maalgelinayso midowga Yurub waxaa loo diyaariyay shacabka Puntland buu ka hadlayo miisaaniyadda si ay u fahmaan sida ay qorshaysan tahay miisaaniyadda uuna u noqdo tixraac shacabka kula xisaabtamaan dawladda si loo helo dawladnimo oo ku dhisan hufnaan daahfurnaan iyo isla xisaabtan waxaa la dhammaystiray habxisaabeedka dhammaan dawladaha hoose ay ula midoobi lahaayeen habxisaabeedka dawladda dhexe waxaa dib u eegis ku samaynay sharciga maalgashiga Puntland si looga dhigo mid soo jiita dareeyaasha maalgashiga Soomaaliya iyo kuwa wadamada kale xukuumaddu waxay dadaal badan gelisay sidii loo dardargelin lahaa taabagelinta kastamka Turdibi iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee dalka Itoobiya gaar ahaan dawlad-deegaanka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa in si dhaqsaha uu noqdo kastam si rasmi ah u shaqeeya xukuumaddu waxay diyaarisay qorshaha qabanqaabada shirweyne maalgashi kaasoo lagu soo bandhigi doono fursadaha ganacsi ee ka jira Puntland kaas oo lagu casumay maalgashato ka kala socota dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan dardargelin ku bilownay qorshihii ballaarinta dekedda Boosaaso annaga oo kula heshiinay shirkadii gacanta ku haysay qorshe mudaysan oo lagu dhammaystirayo ballaarinta dekedda dhinaca kalena waxaa socda dhismihii dekedda Garacad oo markabkii qalabka dhismaha waday uu dalka soo gaaray waxaa sidoo kale la saxiixay heshiis lagu dhisayo magaalada Eyl Marso kalluumaysi oo casri ah waxaa sidoo kale la dhameeyay qorshihii ballaarinta aeroboorka Boosaaso iyo dhismaha aeroboorka Gaalkacyo kuwaas oo wax badan ka tari doona kobaca dhaqaalaha iyo fursadaha ganacsi iyo maalgashiga Puntland waxaa dadaal dheer oo miro dhal leh la geliyay helitaanka duulimaadyo caalami ah si loo hirgeliyo maalgashiga iyo isku xirka Puntland iyo caalamka waxaa la qabtay madashii ugu weyneed ee kalluumaysiga gudaha dalka iyadoo ay ka soo qayb galeen wasaaradda kalluumaysiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay shirka kalluumaysatada iyo hay'adaha ee kalluumaysiga Soomaaliya xukuumaddu waxay ku guuleysatay inay maarayso kalluumaysatadii laga soo raray suuqii hore ee Nagfish ee Boosaaso lana dejiyo suuq cusub ee magaalada Boosaaso kaas oo ah mid ka casri ah kana nadaafad wanaagsan suuqii hore ay uga shaqayn jireen waxayna xukuumaddu suuqaas u dhammaystirtay baahiyaha ay u baahnaa badankood waxaa xukuumaddu dadaal badan ku bixisay soo celinta iyo dib u bilaabidda mashruucii dhismaha wadada Garowe Gaalkacyo wada xaajood kadib waxaan ku guuleysanay in aan badbaadino mashruucaas dhawaana dib ayaa loo bilaabayaa shaqadii dhismaha wadadaas muhiimka ah waxaa sidoo kale soo dhammaystirmay qorshihii wada laami ah lagu saari lahaa wadada u dhaxaysa Dangoro iyo Eyl oo aan filayo in si dhaqso ah u bilaaban doonto roobabkii guga oo ahaa nicmo aad loo mahadiyay ayaa dhanka kale meelo badan ka burburiyay wadada isku xirta Garowe iyo Boosaaso iyadoo ay ugu darnaayeen inta u dhaxaysa Garowe iyo Sunajiif oo go'itaan iyo burbur ku yimid laamigii uu keenay inuu kala xirmo isku socodka gaadiidka iyo badeecadaha dalka muddo gaaban waxay xukuumaddu ku guuleysatay oo madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo in si ku meel gaar ah loo hagaajiyo meelihii burburka iyadoo muddo dhowna si dhammaystiran dayactir iyo dib u dhis loogu samayn doono meelihii waxyeeladu gaartay muddadii u dhaxaysay Janaayo ilaa iyo May waxaa la daaweeyay xoolo dhan 500,000 oo neef iyadoo ay ka faa'iideysteen ugu yaraan 100,000 oo qoys sidoo kale waxaa la fuliyay mashruuc xoolo qaybin ah iyadoo xoolo dhan 5,000 oo neef lagu taageeray xoolo dhaqato ku nool gobolada Bari iyo Nugaal waxaa la diyaariyay siyaasadda xoolaha dhaqatada Puntland looga dhigi lahaa xoolo dhaqato beeraley si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqday reer miyiguna ay uga faa'iideystaan dhulka baaxadda leh ee ku habboon beerashada qaybta horumarinta bulshada mudanayaal iyo marwooyin
waxaa la daahfuray lana howlgeliyey xarunta tababarka shaqaalaha caafimaadka oo laga dhisay wasaaradda xarunta dhexdeeda xaruntu waxa ay wax weyn ka tari doontaa kobcinta aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha caafimaadka waxaa la dardargeliyey adeega caafimaadka gobollada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaasoo aan u helnay mashaariic caafimaad oo hadda laga bilaabayo socon doona muddo hal sano ah ayna ka faa'iideysan doonaan dad gaaraya 135,000 oo qof waxaa la furay oo la howlgeliyey cisbitaalka degmada Xarfo sidoo kale dadaal dheer kadib waxaa noo hirgelay in dhismihii cisbitaalka Garowe dib looga heshiiyo dhawaana la bilaabi doono dhismihiisa waxaa muddadii Janaayo ilaa Juun la talaalay caruur dhan 84,710 oo laga talaalay cudurrada faafa gobollada Puntland oo dhan waxaa sidoo kale adeeg caafimaad oo dhammaystiran loo sameeyey 97,271 hooyo oo isugu jira uurley iyo nuujiso dhinaca kale waxaa cisbitaalada heerka labaad secondary hospitalka adeeg loo sameeyey 242,833 oo isugu jira bukaan socoto iyo bukaan jiif waxaa dib u habayn iyo ballaarin lagu sameeyey goobaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashadu ay maamusho iyadoo 23 fasal oo cusub lagu hirgeliyey xarumaha waxbarashada ee degmooyinka Xarfo Jariiban isku shuban iyo Gaalkacyo dhinaca kale waxay dawladdu u heshay waxbarasho sare ee heerka jaamacadeed dibadda 30 ka mid ah shaqaalaha rayidka ee dawladda waxaa guul ku soo dhamaaday imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiga sare iyo dhexe waxaa u fariistay arday gaaraysa 15,982 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho dhammaan gobollada Puntland waxaa tababar macallinnimo loo furay 300 macallin oo dugsiyada hoose dhexe iyo macallimiintaas oo ka kala yimid dugsiyada Puntland ku yaal kuwaasoo sanadkii labaad u soo xarooday tababar macallinnimo iyadoo laga duulayo siyaasadda dawladda ee ka hortagga iyo la qabsiga abaaraha waxay dawladdu si rasmi ah u bilowday meel fiicanna maraya mashruuca ballaaran oo looga hortagayo aafada abaaraha kaas oo ka kooban dhowr qaybood oo isugu jira dhismaha 5 biyo xireen dib u habaynta iyo dayactirka barkadaha iyo dayactirka dhulalka daaqsinka ah waxaa la bilaabay fulinta iyo siyaasadda yaraynta saboolnimada iyadoo shaqo abuur loo sameeyey dad gaaraya 10,360 qof oo ka shaqaynaya ilaalinta deegaanka dhir kobcinta dayactirka xirfadaha iyo biyo qabatinka degmooyinka kala ah Buurtille Laasqoray Garowe Qardho Eyl Bardarbayla Gaalkacyo Jariiban Boocame Buuhoodle Boosaaso Baran Ufayl iyo Galdogo iyadoo la fulinayo siyaasadda dawladda Puntland ee ku saabsan dhiraynta iyo cagaarinta magaalooyinka waxay wasaaradda deegaanka qaybisay 5,600 oo geed oo isugu jira geed murood geed hareed geed ubaxeed waxaa lagu beeray xarumaha kala duwan ee dawladda cisbitaalada iyo xarumaha loogu adeega bulshada dhirtaan waxaa laga qaybiyey guud ahaan gobollada Puntland waxaa la bilaabay hirgelinta 2 ceel biyood oo laga qoday degmooyinka isku shuban iyo Dangoroyo iyadoo dhinaca kale dayactir lagu sameeyey in ka badan 20 ceel oo ku yaala deegaanada kala duwan ee Puntland waxaa sidoo kale biyo dhaamis laga sameeyey deegaanadii abaaruhu saameysay iyadoo la gaaray dad dhan 100,000 qaybta shanaad dib u habaynta iyo tayeynta hay'adaha dawladda mudanayaal iyo marwooyin waxaa tababaro ku saabsan kor u qaadista tayada shaqaalaha loo sameeyey dhammaan agaasimayaasha maamulada shaqaalaha madax qaybeedyada arkiibiyada iyo IT-ga dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxaa la dejiyey lana bilaabay fulinta qorshaha dib u eegista darajada iyo xaqsiinta shaqaalaha rayidka ah taas oo meesha ka saartay isu dheelitir la'aanta darajooyinka aqoonta xirfadaha iyo xaqsiinta shaqaalaha rayidka ah waxaa la dhammaystiray diyaarinta qaab dhismeedka iyo shaqo qeexidda 18 wasaaradood iyo dhammaan hay'adaha guddiyada iyo xafiisyada madax bannaan oo dartooda tahay 21 waxaa dhowaan magacownay guddiga dib u eegista xeerka aasaaska wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda taas oo la rajaynayo marka ay dhammaystirto in hay'ad walba oo dawli ah ay yeelato xeer u gaara oo cadeynaya waajibaadka iyo mas'uuliyadda hay'ad walba sarana u qaadaysa wada shaqaynta hay'adaha dawladda mudanayaal iyo marwooyin Puntland waxay la wadaagtaa caqabado amni dhaqaalo iyo mid siyaasadeed
dalka intiisa kale iyo guud ahaan gobolka. caqabadahaas waxaa ugu horreeya kuwa markasta ay kala dhaxlaan dowladihii soo maray Puntland muddooyinka u dambeeyay iyadoo garwaaqsan kana duulaysa sugidda amniga Puntland iyo sarreynta sharciga. waxay dowladdu ka dhigatay hadafkeeda koowaad iyo labaadba dib u eegista iyo tayeynta dhammaan hay'adaha amniga iyo cadaaladda oo dhowrkii bilood ee dowladdu jirtay horumar ballaaran laga sameeyo qorshaha cadna ay ka yeelatay. 22kii sano ee jirtay Puntland horumar ballaaran lagama samayn abuuridda ilo dhaqaale oo kala duwan, wuxuuna dakhliga Puntland intiisa badan ku tiirsan yahay canshuuraha furdooyinka, taas oo aan dabooli karin kobaca kharashaadka dowladda iyo baahiyaha sii kordhaya ee dhanka amniga iyo horumarinta arrimaha bulshada. si haddaba loo maareeyo caqabadaha dhaqaale, waxay dowladdu ku dadaalaysaa beekhaaminta iyo tashiilidda dakhliga inta soo gala iyo hirgelinta qorshayaal daahfuran oo lagu casriyeynayo nidaamka guud ee maaliyadda, kan canshuuraha, mushaharaadka, gudnooyinka iyo abuuridda ila dakhli oo cusub iyo kor u qaadista fursadaha maalgashi ganacsi iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. mudanayaal iyo marwooyin, dib u dhaca ku yimid dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka ah ee federaalka ah wuxuu keenay kala caddayn la'aan wada shaqaynta iyo wax wada qaybsiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ay Puntland hormuud ka tahay. waxaa sidoo kale taasi keentay in mugdi galo in waddanku yahay mid ku shaqaynaya hannaan federaal ah ee lagu heshiiyey iyo in kale. caqabadahaas dastuuriga ah ee fahanka federaalaynta waddanka iyo qaybsiga khayraadka iyo awooduhu wuxuu curyaamiyey wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxayna Soomaaliya iyo Puntland ba ku lumiyeen fursado qaali ah oo waddanka looga saari lahaa jahwareerka siyaasadeed, dhaqaale, amni, horumarineed ee aadka loogu baahan yahay. inkasta oo raxmaddii eebba si fiican loogu diirsaday, haddana waxaa la soo maray abaaro adag oo saamayn xoog leh ku yeeshay dadka, duunyada iyo dhaqaalihii dalka. dhinaca kale, dadaalkii badnaa oo roobabku keenay waxay waxyeello u geysteen buundooyin ku teedsan laamiga dheer ee isku xidha gobollada dalka, iyada oo uu hakad ku yimid isku socodka dadka iyo badeecooyinka, taasoo keentay dhibaatooyin dhinaca isku socodka iyo dhaqaalaha. dowladdu waxa ay ka howlgashay wax ka qabashada kaabayaashii daadadku waxyeeleeyeen, iyadoo si dhaqso ah loo dhammaystiri doono dhismaha iyo dayactirka socda. dhinaca kale, waxay dowladdu ka howlgashay si loo horumarin lahaa qorshaha lagu kaydinayo biyaha daadka roobabka si dadka iyo dunyada ay uga faa'iidaystaan xilliyada jiilaalka. mudanayaal iyo marwooyin, iyadoo ay jiraan caqabadahaas oo dhan, haddana muddadii yarayd ee 4 bilood ahayd ee ay shaqaynaysay xukuumaddu waxay qabatay shaqooyin baaxad leh oo ay ka mid yihiin kuwa aan ka soo warbixiyey, waxaana noo qorshaysan kamana dhalinta dhammaan howlaha noo harsan ee ku xusan qorshe sannadeedka ay ku shaqaynayso xukuumadda. haddii aan la idmo, waxaan u rajaynayaa kalfadhigan guul. waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno wixii faahfaahin dheeri ah oo aad uga baahataan shaqooyinka qabsoomay, kuwa socda, kuwa qorshaysan intaba. ugu dambayn, waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 4-aad ee baarlamaanka Puntland. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.